tirinta codadka. Habraaca tirinta codadka ee goobtu waa sidan soo socotaa. Tallaabada koowaad waa inuu guddoomiye ku-xigeenku warqadda codbixinta ka soo saaraa sanduuqa codbixinta markiiba hal warqad, una gudbiyaa guddoomiyaha goobta. Tallaabada labaad, guddoomiyaha goobtu waa inuu furfuraa waraaqda codbixinta si cod dheer ahna ugu dhawaaqaa magaca murashaxa ama xisbiga helay codka. Tallaabada saddexaad, kadib marka uu ku dhawaaqo murashaxa ama xisbiga helay codka warqadda, guddoomiyuhu waxa uu warqadda codbixinta u gudbinayaa hubiyaha. Tallaabada afraad, hubiyuhu waa inuu sare u qaadaa warqadda codbixinta oo uu tusaa wakiilada xisbiyada iyo ururada ee ku sugan goobta. Tallaabada shanaad, xogayuhu waa in uu warqadda diiwaan xisaabeedka tirada loogu tala galay ku qoraa, taas oo la xidhiidha murashaxa ama xisbiga codka warqadda helay. Waa in uu si adag u dhigaa miiska dushiisa, isagoo isduldhigaya murashax kasta waraaqaha codbixinta ee uu helay ama xisbi kasta waraaqaha codbixinta ee uu helay, iskana ilaaliyaa in aanay iska dhex gelin waraaqaha codbixinta ee murashaxiintu ama xisbiyadu kala heleen. Tallaabada lixaad, marka dhammaan la kala saaro waraaqaha codbixinta ee ku jiray sanduuqa codbixinta, guddoomiyaha oo ay caawinayaan shaqaalaha kale ee goobtu waa in ay tiriyaan waraaqaha codbixinta ee murashax kasta ama xisbi kasta, iyagoo xisaab xidh ahaan isugu eegaya foomka uu xogayuhu ku qoray codadka murashaxiinta ama xisbiyada, waxaanuu ku qorayaa qaybta loogu tala galay ee foomka natiijada goobta D1A ama D1B. ogsoonow, D1A waa warqadda lagu qoraayo natiijada doorashada madaxweynaha ee goobta codbixinta. D1B waa warqadda lagu qoraayo natiijada doorashada xisbiyada ee goobta codbixinta. haddii uu jiro wax farqi ah oo u dhexeeya isugeynta guud ee waraaqaha codbixinta ee murashaxiinta ama xisbiyada, waa inuu guddoomiyuhu mar labaad dib u tiriyaa waraaqaha codbixinta ee murashaxa iyo xisbi kasta si dib loogu saxo.